Filmaanta Bollywoodka ama ku maqashay lag iyo karoor. इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए 70 लाख जोर Maxaa laga wadaa? Maxayse uga duwan yihiin milyan, bilyan iyo trilyan? Guud ahaan, lacagaha adduunka laga isticmaalo sida dollarka waxaa lagu xisaabiyaa qaabka caadiga ah oo inta badan wadamadu ay isticmaalaan. Laakiin Hindiya iyo wadamo badan oo isticmaala lacagaha loo yaqaan rubiga waxa ay leeyihiin xeer nidaamyeedyo u qaas ah ama eray bixinno cajiib ah oo ay u isticmaalaan cadadka faraha badan. Tusaale, filmaanta Bollywoodka ama ku maqashay lag iyo karoor. इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए 70 लाख जोर Maxaa laga wadaa? Maxayse uga duwan yihiin milyan, bilyan iyo trilyan? Lag iyo karoor waa xeer nidaameed la yiraahdo Indian Numbering System, halka milyan, bilyan iyo trilyanka ay yihiin International Numbering System. Bal marka hore aan fahanno waxa laga wado International Numbering System annagoo ka bilaabayna kun. Kun lagu dhuftay kun waa 1 milyan. Waxaan haysanaa 6 eber. Milyan lagu dhuftay kun waa 1 bilyan. Sidoo kale waxaan haysanaa 9 eber. Bilyan lagu dhuftay kunna waa 1 trilyan. Sidoo kale waxaan haysanaa 12 eber. Bal markaan aan fiirino Indian Numbering System annagoo ka bilaabayno kun. Kun lagu dhuftay 100 waa 1 leg, waxayna wadataa 5 eber. 1 leg oo lagu dhuftay 100na waa 1 karoor. Sidoo kale waxay wadataa 7 eber. Haddii aad u fiiriso si fiican farqiga u dhexeeya, International Numbering System waxa uu adeegsadaa ama ku dhuftaa tirada kun si loo helo taxanaha nambar ee ku xiga. Halka Indian Numbering System uu adeegsado ama ku dhufto tirada 100 si loo helo taxanaha nambar ee ku xiga. Haddaba, aan isbarbardhig ku sameyno labadan qaab. Lambarka koowaad ee kunka waa isku wada mid. Halkii leg wuxuu la mid yahay 100,000. Shantii legna waxay la mid tahay 500 oo kun. 10kii legna wuxuu la mid yahay 1 milyan. Halkii karoorna wuxuu la mid yahay 10 milyan. Eray bixinadan waxaa si caadi ah looga isticmaalaa Hindiya iyo wadamo kale si loogu muujiyo tiro badan. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo lacagaha badan, tirooyinka dadweynaha iyo tirooyinka alaabaha. Waa maxay macnaha rubi? Erayga rubi asalkiisu waxa uu ka yimid luqadda qadiimiga ah ee Sanskrit oo macnaheedu yahay lacag laga sameeyay qalin ama silver. Waxaa taariikh ahaan loo adeegsan jiray in lagu tilmaamo lacagihii qalinka ahaa ee laga isticmaali jiray qaarad u ekaha Hindiya. Lacagaha rubiga waxaa isticmaala wadamada kale ah Hindiya, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Seychelles, Mauritius iyo Maldives. Sidoo kale waxaa jira wadamo horay u isticmaali jiray laakiin hadda yeeshay lacago u gaar ah. Wadamadaas waxaa ka mid ah Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oman, Imaaraadka Carabta, Burma oo hadda loo yaqaan Myanmar iyo wadamadii bariga Afrika ee Ingiriisku uu gumaysan jiray. Wadamada isticmaala lacagaha loo yaqaano rubiga inkastoo ay badan yihiin, haddana qaarkood waxa ay ku kala duwan yihiin dhawaaqa lacagtooda. Maldivian rupiah, Indonesian rupiah, Indian rupee, Pakistani rupee, Iyaga oo ka wada yimid isla luqadda qadiimiga ah ee Sanskrit. Mid kasta oo ka mid ah lacagahaas waxa uu leeyahay sarifkiisa, qiimihiisa iyo siyaasadiisa lacagta oo ay go'aamiyaan bangiyada dhexe ee dalalka ay ka kala tirsan yihiin. Inkasta oo ay wadaagaan asal taariikheed iyo magac midaysan, haddana waa lacago madax bannaan oo lagu isticmaalo gudaha xuduudahooda. Haddii aad xiiseynayso in aad wax badan ka ogaato lacagaha rubiga, halkan ayaan kaaga soo jawaabi doonaa su'aalahaaga. Fadlan like-ta noo saar, sidoo kalena subscribe oo nala wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Intaan muuqaalka mid lamid kulmi doono, nabad gelyo.